dadaa jiro oo dhahay adig goobaa leedahay waa gaaban tahay maxaa dad fahansiisaa marka hadda waxaas aad isku mashquulisid waxa ay ugu yeeraanaanay si uusan jeclayn waxa ay kuwii uu la soo shaqeeyay qaar ku yeesi jireen sida uu u abuuran yahay waayo dheer oo la quursanaya ama lagu qoslayay aadan aweys nuur oo ku magac dheer injineer goobe maanta waxa uu qaataa qandaraasyo waaweyn oo uu dhismayaasha cusub iyo goobaha ganacsiga ku gelinayo koronto magacaygu waa aadan aweys nuur oo maanta ku magac dheer ama la magac bagacay injineer goobe because injineer goobe macnaha waa u jeedaan goobada waaba leeyahay laakiin waxaa caan noqday mar walba qof walba wuxuu leeyahay goobe ayadoo taagan waxaan ku sii darsaday injineer maasha Allah maanta halkan waxaa keenay dad badan oo dhalinyaro ah oo beedkayga ku xiran oo maasha Allah boqolkiiba 90 aan dhigi karo kuwa oo waxa waaye jaamacad dhigtaan iyo kuwa iska normal ah maasha Allah TikTok aniga uma soo gelin inaan caan noqdo ama uma soo gelin inaan magac aan ku yeeshto oo maanta lacag aan ku raadiyo uma soo gelin kaliya waxaan u soo galaa dhalinyarta Soomaaliyeed oo qaasatan kuwa ardayda jaamacadda dhigtaan oo electric ay baranayaan inaan wax u faa'iideeyo waxaan beerta banaadir ku kulannay isagoo la ballansan dhalinyaro qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ka bartay cilmiga korontada kuwaasoo doonaya inay wax ka kororsadaan dhalinyaradan ayaa sheegaya in la kulanka injineer aadan iyo iyaga ay fududeysay aaladda TikTok halkaas oo uu mararka qaar ku soo gudbiyo casharo korontada ku saabsan ujeedka maatina halkan waxay tahay in injineerka aan la kulmo sababta injineerka uu kulmaana wax kalma injineerka wuxuu bixinayaa qaabka tubooyinka guriga cusub loo dhigo oo korontada maanta wadankeena hooyleema helayo meel technicianka gaar ahaan tubooyinka qaybtaas la helay alxamdulillah hadda wadanku uu soo kordhoya in laga helo iskoola technician sida Bruge iyo Hayla Barisay iskoola kale farsamo gacan laakiin injineerka wuxuu dhalinyarada Soomaaliyeed daaraan dhalinyarada jaamacadda dhigto oo aan helin technicianka inuu ka caawiyo asoon meel kale aan marin laakiin si oo noo sheego inuu na caawiyo doono social media marka ka arkay aaladda TikTok aan ka arkay gaar ahaan markaan nafsiina ka hadlo sida idin muuqata aaladda TikTok waa shaneemo ay ku xiran yihiin da'yarta Soomaaliyeed waana seef laba af leh oo hadba dhinacii la rabo wax loogu gooyn karo aadan aweys waxa uu ka mid yahay dadka ku soo gudbiya aaladan cilmigooda ee bulshadana uga faa'iideeya marka waxaan leeyahay dadka qaasatan dadka TikTok isticmaalayo everyday qabiilka ka sheekeynaya ama siyaasadda ka hadlayo horta qabiilka sidiisa waxa macnaha kitaabka lagu soo qoray oo qabaa'il la tacaarufo in la isku aqoonsado kaliya hadda adiga islaax sameeynaysid macnaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri la khayra fi katirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islaahin bayna an-nas macnaha ana dadka kala masbiixaysid laakiin hadda tiraadid aniga reer hebel ahay wax hal oo meesha iimaanaya malahan sheekada aadan waxa ay diraysaa laba fariimood oo kala ah kow in qofka kartidiisa waxa uu qabsanaya iyo sida uu u abuuran yahay aysan isku xirnayn dambi weynna ay tahay in ruuxa bini'aadamka lagu faquuqo sifo uusan isagu dooran labo in TikTok iyo aaladaha kale ee Soomaalidu isticmaasho looga faa'iideysan karo dhinaca wanaagga